gabar Soomaaliyeed ayaa waxa guursaday nin Algerian waa taariikh true story waa marka gabadhi waa heshiiyeen asaga marka sharci ma lahayn ujeedadu guursaday marka maxay ahayd inuu sharci ku helo sharciga ku helay marka sharciga uu ku helay wuxuu ka dhalay saddex caruur ah saddexda caruurta ahayd sharciga ku qaatay sharciga marka lagu siiyay gabadhi waxaan aadaynaa oo dhaha marka madii toos moo dhahayo marka waxaan aadaynaa Algeria waxaan aadaynaa oo dhahay Morocco ma fahamtay transitka marka uu ka dhigay Algeria uu ka dhigay marka waa Algerian maadaama uu yahay Algeria markii la tagay oo qaybta transitka la joogo ayuu si hoose saddexda caruurta ahayd ayuu مسؤولشان هذا يا ترنت سولي يكون مغنيت أيوة جودها الله قلي وانين الجريان جوده ولا قلي وفي عروتي سروا وطيب فاميل كيسبنا كسوقيين قبلني هذه مسؤولش كسر نقطة مسؤولي كسر دفع سؤال زيو تقالبه أو أي ترى كسر نقطة واحد جوجا مالها قبل الشوق النقطة أنت أورد بتوعي وعروتك كم مكان تاني ودرين كبتا حق أورد عيد مري مكة أو إمبريشن كأي أركان قبل وعين حاجة ذري دهن وخدين هنيجا ممكن يجي وحام مكان عروتي يجي أي مكان حاول زوجي هذه ما شاء الله ما غناش اللي هذا مجران ترتيب والكل رادين إلى أن نجورفه بدي عيد مري ما ركتي باش يحكي رادين جاء يجوا جاء already كاميرون كل شيء أركان نيك يقولون قالي قبل شوقين هذا واشكو بوقدي مركبة وحال هلا وعد هذا مكة سفارته هلا وعد هذا إنباستيجا الله وعين باستيجا يمد قبل السيريا لو قال حملي حقيقة وأرنت نبأه دعالي وحافظنا كدعالي markii loo wacay embassy ayaa gabadhii marka way wareystay safaaradii qalada ka socotay xaaladda ka warraali risaad meeshaasaan u soconay dhahday aniga tigidkii transitka meesha ku waa kan carruurteedii iyo ninkiina ma hayo anaga ka wardoonaa adiga hadda si nabad ah maaragtay waxaan ka codsanaynaa ugu noqoto meesha ka timid oo Ingiriiska way dhahday gabadhii markiiba tigidkii waxba safaaraddu u dhamayday diyaaradii sidii ku soo raacay gabadhii ilaa hadda ka belief ilaa hadda gabadhii shoog waa يعني مستحيل حتى ما عرفش بوغري بفير وليبا حتى هو اسلام فير حتى ما انت qofka marka sii guursana marka dad kale oo gaalaha ama dhaqan kale kii islaamka ayaa saan marka u xumeeyay gabadhii Soomaaliyeed oo sharaf ka lahayd marka nin Soomaaliyeed waxa rabaa ahaado marka dhaqanka marna marka tagayo oo nin Soomaaliyeed marka walaalayaalow aniga waxaan durwaalidkooda daarnaa war gabdhihi waxa laga dhaadhiciyo in dhaqanka uu yahay maaragtay kan Soomaaliga ah wiilka Soomaaliyeed waxaa la yiri maaragtay asaga la horeynin xaqiiqatan waxa la horeynin waa ninka Soomaaliga ah gabadhii ilaa hadda ka belief ilaa hadda gabadhii shoog waa يعني مستحيل حتى ما عرفش بوغري بفير وليبا حتى هو اسلام فير حتى ما انت qofka marka sii guursana marka dad kale oo gaalaha ama dhaqan kale kii islaamka ayaa saan marka u xumeeyay gabadhii Soomaaliyeed oo sharaf ka lahayd marka nin Soomaaliyeed waxa rabaa ahaado marka dhaqanka marna marka tagayo oo nin Soomaaliyeed marka walaalayaalow aniga waxaan durwaalidkooda daarnaa war gabdhihi waxa laga dhaadhiciyo in dhaqanka uu yahay maaragtay kan Soomaaliga ah wiilka Soomaaliyeed waxaa la yiri maaragtay asaga la horeynin xaqiiqatan waxa la horeynin waa ninka Soomaaliga ah marka aadan maaragtay u maasantii